kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena ciyaaraha halkaad nagala socotaan waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeenana waxaa ka mid ah Chelsea FC Newcastle, Blues oo la ballansan kooxda reer Sacuudi ee Newcastle, Gunners oo shako haysa inay mar labaad la wareegto booska afraad ee horyaalka Premier League, Barcelona oo booska saddexaad ee La Liga higsanaysa iyo xogta kulanka, Cristiano Ronaldo oo dib u soo celiyay xasuusta Old Trafford ee 2008 iyo rikoodhka taariikhiga ee uu jebiyay, sidoo kale rikoodhka taariikhiga ee dhigtay kooxda Man United. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar haddii horena loo jeclaaday share ku darsiina faafi barnaamijkeenan. Blues oo la ballansan kooxda reer Sacuudi ee Newcastle. Qodobka isaga ayaa aynu ku eegi doonaa barnaamijkeenan intuu socdo. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku qaabilaysa kooxda Newcastle United kulan ka tirsan horyaalka Premier League isbuucii 28aad. Kooxda Newcastle ayaa kulankan seegaya ciyaaryahanno dhowr oo ay ka midka yihiin Fernandes, Kylian Trippier, Wilson, Lewis iyo Hayden, halka Chelsea ay ka maqnaan doonaan labada ciyaaryahan ee kala Ben iyo James. Goor ay Newcastle ku badiso guriga Chelsea ee Stamford Bridge waxaa ugu dambeysay sanadkii 1986 ciyaar ku dhammaatay 3-1. Chelsea ayaa doonaysa inay 4 ciyaarood xidhiidh ka badiso Newcastle horyaalka Premier League. Kooxda Newcastle ayaa laga badin 11 kulan oo xidhiidh horyaalka Premier League. Arsenal FC Leicester City, Gunners oo shako haysa sida ay mar labaad booska afraad ugala bixi lahayd kooxda Man United. Qodobka isaga ayaa aynu milicsan doonaa. Arsenal ayaa ku qaabilaysa gigideeda Emirates Stadium kooxda lagu naanayso dacwada. Tababare Mikel Arteta ayaa sheegay in tamayoso kulanka diyaar u yahay oo caafimaadkiisu taam yahay, suurtagal tahay inuu ku soo bilowdo kulanka Leicester City. Gunners ayaa u socotay in kulankii saddexaad oo xidhiidha Premier League garaacda Leicester City. Leicester City ayaa xilli ciyaareedkii hore ku garaacday Arsenal gurigeeda ciyaar ku dhammaatay 2-2. Gunners 8 kulan ee ugu dambeeyay ay ku ciyaartay horyaalka Premier League gurigeeda, hal kulan oo keliya ayaa laga bediyay, waana kulankii ay kooxda Man City ku garaacday 2-1. Haddii aynu eegno dhinaca iyo horyaalka La Liga, Barcelona ayaa qaabili doonta kooxda Osasuna. Barca oo booska saddexaad ee La Liga ka higsanaysa iyo xogta kulanka ayaa aynu ku eegi doonaa qodobka isaga. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa martigelinaysa kooxda Osasuna kulan ka tirsan horyaalka La Liga isbuucii 28aad. Barcelona ayaa kulankan waxaa seegaya ciyaaryahanada kale Ansu Fati, Sergio Roberto, Samuel Umtiti, sidoo kalena waxaa ganax ku maqnaanaya Nico oo haysta 5 huruudood, halka Osasuna kaliya ay ka maqnaan doonaan labada ciyaaryahan ee kala Aristo oo dhaawac ku maqan iyo Avil oo Calzana ku maqnaan doona. Kulankii hore xilli ciyaareedkan waxay ku kala baxeen labada kooxood barbardhac 2-2. Shantii kulan ee ugu dambeeyay iswajahan labada kooxood waxa ay ku kala baxeen 2 jeer oo ay badisay kooxda Barcelona, halka 1 jeer ay badisay kooxda Osasuna iyo 2 jeer oo ay ku kala baxeen barbardhac. Haddii aynu intaa kaga nimaadno kulamada la ciyaarayo maanta Axad iyo caawa horyaalada qaaradda Yurub, markaan eegno wararka kale ee kubadda cagta.
Cristiano Ronaldo oo dib u soo celiyey xasuustii Old Trafford ee 2008 iyo rikoodhka taariikhiga uu jebiyey ayaa aynu ku eegi doonaa qodobka isaga. Xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa dib u soo celiyey xasuustii ugu fiicneyd Old Trafford kadib 3-dii uu ka dhaliyey Tottenham ciyaarta ay ku garaaceen 3-2. Ronaldo ayaa dhaliyey goolashii 805, 806 iyo 807, waxaana sidaas ku dhaafay rikoodhkii gool dhalinta ee FIFA u diiwaangelisay halyeegii reer Austria ee Czech Republic Jos Bacon, kaasoo la rumaysan yahay inuu dhaliyey goolal ka badan intaa balse aanu ugu jirin diiwaanka FIFA. Rikoodhka taariikhiga ee Cristiano Ronaldo ayaa waxaanu ka heleen jamaahirta Old Trafford farxad kale oo weyn. Ronaldo ayaa dhaliyey 3-dii ugu horeysay Old Trafford tan iyo 2008, waqtigaas oo laga joogo 14 sannadood. waxaanu ka dhaliyey kooxda Newcastle ciyaar ku dhammaatay 6-0. Ronaldo ayaa dhaliyey tan iyo markuu soo noqday 3-dii ugu horeysay ee uu ku dhaliyay garoonka Old Trafford. Kooxda Man United ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee dhalisay gaadhay 400 oo guuleed horyaalka Premier League. Qodobka isaga ayuu noqon doonaa qodobka ugu dambeeya barnaamijkeenan. Kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford ee kooxda Man United ayaa gaadhay guushii xalay 400 oo guulood marka ay ku ciyaartay masraxa riyada ee Old Trafford, waxaanay noqotay kooxdii ugu horeysay ee horyaalka Premier League gaadha 400 oo guulood. Kooxda Man United ayaa dhigtay rikoodh ku cusub horyaalka Premier League. Aanay koox kale oo horyaalkan ka ciyaarta Premier League aanay dhigin, waxaanu noqonayaa inay noqotay kooxdii ugu horeysay ee gaadha 400 oo guulood horyaalka Premier League. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ku egi. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, haddii hore la joogto like iyo share ku dar, siina faafi barnaamijkeenan isugu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. Mahadsanidin.